السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي قالقة كسر وهذا مركز علم التك يوتيوب channel كذا كوع سبسكرايب له هدي أنا اللي شوكت أنا لسه شوك فيديو كان لايك شير نده سيو قارو صاحبه فربنا كومنت تقولنا وارك تدينا صاحبتي قالقة ما أنت فيديو كان وحنا جوا هذا الدونا سيدك كوع قال نهيت in lagula isticmaalo gmail-kaaga laga yaabee inaad isleedahay gmail-kaaga sidee lagula isticmaali karaa waxaa lagula isticmaali karaa waxaa laga yaabaa in aad mobile hore oo iska iibisay oo gmail-kaaga ku jiray oo aadan ka bixinin sidaana uu sii jiro sidoo kale marar qaar markii aad mobile iska iibinaysid waan flashnaa markaan flashnaa laga yaabee gmail-kii wuu ku jiraa marar qaar oo kama uusan bixin marka taas ayaa sabab karta in uu gmail-kaaga oo qof kale isticmaalo sidoo kale cyber ayaa tagi karta meel cyber ayaa tagi karta gmail-kaaga ayaad ku isticmaali kartaa kabacdina waad ku hilmaami kartaa ama inaad ka bixiso aad u manisid ayaad uga tagi kartaa sidaas ayuuna ugu jiri karaa sidoo kale qof kale oo saaxiibka ah mobilkiisa ayaad ka isticmaali kartaa gmail-kaaga si waraaqad ama wax un aad uga fiirisid kabacdina sidaas ayaad ugu iloobi kartaa oo halkaas ayaa email-kaaga iyo password-kiisa lagu heli karaa aad ay u dhib badan tahay markii oo gmail-kaaga laga qaato ama laga helo password-kiisa xogtaada oo dhan waxay halis u jirtaa in la wareego oo laga qaato Google-ka waa meesha ay ku jirto inta ugu badan xogteena xagga internetka haddii amaanta doonaysid in aad xog ku kaysatid internetka waxaad u baahan tahay in aad haysatid gmail sidoo kale inta ugu badan applicationada ku jira internetka waxay u baahan yihiin gmail mar walba oo aad isticmaalaysid oo waxa lagu leeyahay email-kaaga gali si aad account u furatid haddii xataa aad doonaysid in aad furatid Apple ID oo ay iska leedahay iOS-ka oo Android aan ahayn ayaga xataa waxay ku weydiinayaan gmail ayay ku weydiinayaan oo waa in aad gmail-kaaga ku samaysatid ayadana marka aad samaysanaysid iCloud ama Apple ID sidoo kale haddii aad doonaysid in aad samaysatid Hotmail ama Outlook ayadana waxay u baahan tahay in aad haysatid gmail-ku marka waa wax walba oo ku jira internetka ayuu qayb ka yahay sidoo kale Google waxyaabaha ay soo saarto dhan waxaa lagu galaa gmail-ka ayaa lagu galaa sidoo kale si aan hawsha u bilaawno soo qaado mobile-kaada kabacdi waxa aad tagtaa gmail ayaa tagaysaa gmail marka aad tagtid oo account-kaaga uu sidan kugu soo baxo waxa aad sameynaysaa waxa aad ku dhufataa manage your account ku dhufo manage your account marka ku dhufatid sidan ayuu kugu soo bixinayaa qaybtaas kore waxaad raadisaa meesha ay ku qoran tahay security markii aad tagtid hoos ayaad u soconaysaa kabacdina waxaad arki doontaa meeshan your devices ay ku qoran tahay oo ama device-yada aad isticmaashay meesha ay ku qoran tahay ayaad arkaysaa marka halka aragtid hoosteeda waxaad ka arki doontaa macnaha hoos waxaad ka arki doontaa device-yada ama mobilada aad isticmaashid mashiinada aad isticmaashid ayaad hoos ku arki doontaa kabacdina waxaad sameynaysaa halkaas ayaad ka ogaanaysaa midka aad isticmaashid midka ay tig saaran tahana waa mid online ah oo markaas si toos ah loo isticmaalayo hadda midkan u koreeya waa midkan hadda isticmaalayo kan ka hooseeya waa Windows kan ka sii hooseeya waa mobile kale mid walba waxa uu ku sheegaa xilliga ugu dambeeyay ee la isticmaalay Windows ko kale waxa uu sheegayaa in ay tahay 27 mar la isticmaalay ugu dambeysay shalo kale waaye oo kale ayaa la isticmaalayay maalin ka hor maanta taariikhda ah weeyaan si aad u sii ogaatid oo xog dheeriya uga heshid waxa aad ku sii dhufanaysaa manage devices marka ku dhufatid waxa ku soo baxayaan listigan dheer ayaa ku soo baxayo listigan marka uu sidan kugu soo baxo waad kala dooran kartaa midka ugu horeeya tigta saaranta kaas horta waa midka isticmaalaysid kan ka hooseeya taariikhdaas ayaa ugu dambeysay oo la isticmaalay kaas taariikhdaas ayaa la isticmaalay 2 March kan ka sii hooseeya January ayaa ugu dambeysay kan ka sii kala hooseeya waxa ugu dambeysay asna November 2020 marka midka ugu hooseeyo kale hadii aad doonaysid marka in aad iska saartid waxaad sameynaysaa saddexdan dhibcood ayaad ku dhufanaysaa saddexdan dhibcood marka ku dhufatid waxaad leedahay sign out ayaad dhahaysaa sign out marka uu dhufo marka uu ku tuso waa kana sign out ayaad dhahaysaa waa uu saaray kaas uu ka saaray
device walba oo meeshan ku jira waxa uu kula isticmaalayaa gmail-kaaga oo password-kaagana waa ay hayaan marka waa in aad iska saartid si aad isaga nadiifisid oo aysan kula sii isticmaalin aad iyo aad ayaan salaamaya saaxiibada qaaliga intaan fiidiyowga xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh